Abdullaahi Maxamed waxa uu isna ku nool yahay magaalada Kismaayo. Waxa uu ii sheegay in dhul badan oo ku lahaa magaalada Kismaayo oo isugu jiray kuwa uu waalidkiis ka dhaxlay iyo kuwa isagu u iibsaday aysan xilligan gacantiisa ku jirin. Waxa uu u tegey guddiga xalinta muranada dhulka ee magaalada Kismaayo, waxaana uu leeyahay ilaa haatan cadaalad la iima samaynin. waayo walaal waa mahadsantahay Haruun, oo labada dhul waxay kala ahaayeen dhul sharci buu ahaa, laba boos buu ahaa. 2015 baa layga dhistay. dhul la deganaan jiray waagii nabadii buu ahaa, oo talaaladii iyo geedihii iyo guryihii cashaan ah oo burburay sagxadahoodii ay yaaleen. dhul sharci wareegsan oo diyaanateel ku wareegsan yahay. dhulka dhul sharci waa laba boos waa xaafada Siinay ku yaala. waa dhul qadiimi oo 82 ah. dhulkaas sidaas uu ahaa. dhulna 2015 bishii 7 baa isagana layga qaatay. dhulkaas kale sharci ma ahayn, dhul wuxuu ahaa angatay oo 2003 aan gatay, oo dhulka dadku hadda u yaqaan oo basiibku ahaa 10 boos buu ahaa. dhul aan gatay buu ahaa, iina wareegsan oo aan ku wareegsaday derbi aas waxa loo yaqaan derbi, waxa la yiraahdaa derbiga weyn aan ahayn aas ay igu wareegsanaa. ma dacwootay? waa dacwooday, waxaan u tegay degmadan tegay, waa ka dacwooday. sharcigii dhulkan la tegay, ayagii baa loo yeeray, way diideen inay yimaadaan. tirasa ka 3 jeer baan tegay. qaybta booliskaan u tegay, boolis bay igu dareen oo meeshay tageen. meel dhisan oo cida degan yihiin, boolis waxba kama qabanayo. kusoo duuduub oo dhulkaas degmana wax igama qaban, boolisna wax igama qabanin. sharcigiisii anigoo haysta baa laygu dul dhistay, sidaasaana lagu haystaa Haruun. anigana saan isaga soo dabalaaganay maxkamadda degmada iyo stationka ugu dhaxeeyay. waan iska daalay, sharcigayga in baan haystaa, sidaasaan uga sugtay. maamulka waan la hadalay, madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland waan la hadalay. wuxuu yidhi guryo la kala dhaco xilligan ma jiraan, hadday jiraanna dadka dacwadaas qaba noo yimaadaan, waa la furdaaminaya. waxaa jira 2 guddi uu isagu madax ka yahay madaxweyne ku-xigeenka, iyo guddi kale oo xalinta khilaafaadka dhulka, iyo guddi kale oo maxaan ku idhahdaa qaabilsan maareynta iyo maamulka dhulka. ma u tagtay guddiyadaas dhulka oo basiibka warqad aan ku gatay baan ula tagoona, warqad nootaya aan sharci ahayn. ayagaana ii sharciyeeyey markii horeona hadda wareejinahayey, ayagaa ii sharciyeeyo waagay yimaadeen oo maxkamaduhu ka baxeen baan dhulka wareejiyey. kan hadda 10 boosa warqaday iigu sharciyeeyeen baan ula tego, degmadu ii guyso ina Madoolow iyo Kenjel Anilaya gudoomiye degmada ay ku saxiixan yihiin. wax waan ka walaalay, wax isbedelayna male. guddiga ay magacaabeen ay sheegayaan waa kuwii horeon u tegi jirnay, wax isbedelay ma jiraan. madaxweyne ku-xigeenkuna inta dhib dhacaysay wuu taagnaa, dee mindha adinka VOA laahaa mindha uu idiin sheegay, wuu taagnaa inta dhib dhacaysay oo ummaddu isxaqdinaysay. madaxweyne ku-xigeen buu ahaa, ama kii ka horreeyay baa taagnaa, ama isagaa taagnaa. wuu xogogaal buu u yahay.